Haweeney u dhaxda afhayeenka kooxda argagixisada Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere goob cidla ah oo u dhaxaysa degmada Ceelbuur iyo Ceelgaras ayuu uga cararay xaaskiisii 7 carruurta u dhashay waxaana gacanta ku dhigay ciidamada dadka deegaanka waxayna daaha ka qaaday xogo fara badan oo ku saabsan afhayeenka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. Haddaba qeybaha dambe ee muuqaalka ayaan sirahaasi kula wadaagayaa daawadayaal. Waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka inoo share gareysaan. Sidoo kale tan YouTube-ka hal door subscribe tiraadaan gambaleelkana furataan si mar walba aad ugula socotaan xogihii ugu dambeeyay ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya. Mahadsanidin. Aan ku bilaabay haweeneydan ayaa goob cidla ah oo u dhaxaysa degmada Ceelbuur iyo deegaanka Ceelgaras waxaa gacanta ku dhigay ciidanka dadka deegaanka ee halkaasi ku sugan waxa ayna daaha ka qaaday xogo fara badan oo ku saabsan afhayeenka kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo sidoo kale halka uu u baxsaday markii uu ka cararayay xaaskiisa ayaa waxaa ciidanka dadka deegaanka gaar ahaan saraakiisha waxay su'aalo ka weydiiyeen waxa ku sababay inay halkani ku noolaato duurka ah waxayna sheegtay inay halkani kula sugneed afhayeenkii kooxda argagixisada Al-Shabaab uuna yahay ninkeedii kadibna halkaasi oo ka baxsaday markii uu maqlay inay kusoo wajahan yihiin ciidanka huwanta dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka dadka deegaanka ee kacdoonka shacabka waxa uuna u cararay dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waxayna sheegtay in halkani duurka ah ay ku noolaayeen muddo 3 bilood ah halkaasina uu ku dhuumaaleysanayay ninka arxanka daran ee lagu magacaabo Cali Maxamuud Raage Cali Dheere waxayna sheegtay in uu xogta helay inay kusoo wajahan yihiin ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayna qabsadeen inta u dhaxaysa magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanka Ceel helay kadibna halkaasi uu ka baxsaday. hase ahaatee saraakiisha ciidanka dadka deegaanka ee aan qadka telefoonka kula xiriiray waxa ay ii sheegeen in ay haweeneydan ka qabteen goob cidla ah oo geed hoostiis ah halkaasina ay fadhiday halka saraakiisha dadka deegaankana ay dib ka ogaadeen in haweeneydan ku nool goobta cidlada ah geedka hoostiisana fadhisa ay tahay haweeneydii u dhaxda afhayeenka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxayna kadib gacanta ku dhigeen iyadoo halkaasi ku sugan su'aalo badan oo ay weydiiyeen waxa ay sheegeen in haweeneydu ay ahayd mid gabi ahaanba argagaxsan maadaama fikirka kooxda ay haysatay waxayna markii ugu horeysay ku dhawaaqday hadallo adag oo u muuqda inay fikir ahaan ay ku fikir tahay ninka ay u dhaxdo ee arxanka daran ee lagu magacaabo Cali Maxamuud Raage Cali Dheere. haweeneyda ayaa saraakiisha halkaasi ku sugneed waxa ay u soo gudbiyeen dhanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana hadda lagu wareysanayaa xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku leedahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. su'aalo fara badan oo la weydiiyay waxa ay ku adkaysatay in aysan ka jawaabin maadaama ay isku fikir yihiin ninka ay u dhaxdee arxanka daran. haweeneydan ayaa haatan waxa ay wajahaysaa in laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo gacan geliyay halkaasina su'aalo lagu weydiinayo. Cali Dheere ayaa muddooyinkii dambeba waxa uu wajahayaa xaalado adag maadaama ciidamada huwanta ay haatan ku wajahan yihiin qaybo ka mid ah degmooyinka muddada 15 sano ah ay gacanta ku haysteen kooxdani arxanka daran ee lagu magacaabo Ceelbuur iyo sidoo kale deegaanka Ceel helay iyo sidoo kale degmada Galhareeri oo istiraatiiji u ah kooxdani argagixisada Al-Shabaab ayna ka dagaalanto qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya. Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya sida ay daaha ka qaaday xaaskiisa u dhaxda ee goobta cidlada ah uga cararay kadib markii uu maqlay ciidanka huwanta oo ku soo wajahan.
Afhayeenka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambeba waxaa khilaaf xooggan kala dhexeeyay saraakiisha sare ee ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, gaar ahaan ninka lagu magacaabo Mahad Karatay, waana midda maanta muujinaysa in xaaskiisii uu uga cararo goob cidlo ah isagoona markaasi u baxsaday dhanka degmada Ceelbuur. Dadka qaar waxa ay ku tilmaameen fulaynimo in xaaskiisa uu halkaasi uga cararo una gacan gasho ciidanka dadka deegaanka ee ka dhiidhiyay gumaysiga iyo sidoo kaleeta handadaada joogtada ah ay ku haysay kooxdani arxanka daran ee lagu magacaabo Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa tin iyo markii dadka deegaanka kacdoonka xooggan ay ku bilaabeen waxaa laga qabsaday deegaano istiraatiiji u ah oo muddo 15 sano ay ka arriminayeen, waxaana gacanta ku haya ciidanka dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana qaybo ka mid ah gobolada Galgaduud, Mudug, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe lagala wareegay deegaano istiraatiiji u ah, waxaana shabaabka halkaasi ku sugan hadda ay wajahayaan go'doon xooggan oo ku saabsan in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaankaba ay aad u kulaalayaan qaybo ka mid ah gobolada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo muhiimad u ahayd isku socodka kooxdani arxanka daran ee maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa haatan saraakiishooda ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxa ay wajahayaan cadaadis xooggan oo uga imaanaya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna haatan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka horumaro fara badan ka sameeyeen jiidaha hore ee dagaalka ay kula jiraan kooxda argagixisada Al-Shabaab ee haatan ku go'doonsan qaybo ka mid ah gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya. Saraakiisha dhanka amniga waxa ay sheegeen in kooxdu go'doonsan tahay haatanna ay wajahayaan dagaalkii ugu xoogganaa ay ku qaadaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo isgarabsanaya, waxayna la wareegeen deegaano fara badan oo istiraatiiji ah, waxayna saraakiishu sheegeen in halkaasi laga bixiyay miinooyin fara badan oo kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab ay halkaasi geliyeen si ay ugu dhibaateeyaan dadka deegaanka iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Hase ahaatee, ciidanka oo wata kana foojigan dhagarta kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa waxa ay halkaasi ka bixiyeen miinooyin fara badan inta u dhaxaysa Ceel la Helay iyo sidoo kale Ceel Garas. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa 4 jaha ugu wajahan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxaana halkaasi ku sugan saraakiil dhanka dagaalka aad ugu tababaran kulaalayana degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Al-Shabaabka ku sugan Ceelbuur ayaa haatan waxaa laga soo warinayaa in qalqal fara badan oo ku wajahan yahay maadaama dhan ay u baxsadaan aysan jirin, halkaasina ay ku wajahan yihiin ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka isgarabsanaya, waxaana ila ku sugan degmada Ceelbuur ay sheegeen in gabi ahaanba kooxda argagixisada Al-Shabaab si raxan ay u dhex marayaan gudaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, xilligaasina wejigooda laga dheehan karo cabsi xooggan oo muujinaysa ciidanka huwanta ee ku soo